qalbigii dar ilaahay u ooyay buu hanuunku xiraa ku haleelay waa ilays rabbigii uu ka tuugay waxibaa mar qurito la siiyey aqri ya muxamed assalaamu calayk waa maalin weyn waxaad yacni in la isugu yimaado nabigeena muxamed calayhi salaatu wasalaam xuskiisa iyadoo la weynaynayo waa mid ka mid ah shacaa'irta islaamka shacaa'irta ugu waaweyn wa amma binicmati rabbika faxadith in nicmada ilaahay la isaga sheekeeyo oo la xuso waa shay aad u weyn nicmo nabigeena ka weyn calayhi salaatu wasalaamna ma jirto waa nicmada noo horseeday inaynu dad islaam noqono in ilaahay quraankiisa uu noo soo marsiiyay nabigiisa muxamed calayhi salaatu wasalaam insha Allah ta'ala farxadaas aan wada qaybsanaynaa kulligeen waxaan leenahay ummadda islaamka meelay joogtaa mawliid wanaagsan wadanka kulay guud ahaan maalinka ayada waa maalin fasaxa sidii kulay shalaba lagu dhawaaqay oo ogeydeen dawladdu ay ku dhawaaqday marka insha Allah ta'ala culimada naga darjin doonta siirada iyo madaxiga nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin waxaan leenahay annaguna inaanu ka qayb qaadano hadaan nahay maamulkii degmada oo leenahay ummadda islaamka hambaliyo ya rafi'a samaa'i ya sami'a du'aa'i ajib lana alayka ya shafi'a al-qiyamah واغفر للحاضرين وكل الغائبين والعاشقين عليك يا شافع القيامة واغفر للحاضرين وكل الغائبين والعاشقين عليك waxaan isu dardaarmaynaa inaan qof ruux walaaba u qasdo nafsadiisa inuu nabiga u barto calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay nabigu waa acdamul culamaa ruux addoon ah oo ka weynu ma jiro ilaahay dabadiisa subxaanahu wa tacaala markuu ruux barto waxaa la doonayaa rasuulkiisana inuu barto sallallahu calayhi wasallam qiimaha ilaahay siiyey iyo fadliga ilaahay siiyey ilaaba ilaahay u gaarsiiyey wa kaana fadlullaahi calayka cadiima fadliga ilaahay uu ku siiyey adiga nabi maxamed waa wax weyn ilaahay uu yiri subxaanahu wa tacaala nabiga marka yaanu isugu nimid asaga u dabaaldegaynaa laakiin waxa xaqina waa inaan jeclaano weyneynana weyneynta nabiga la weyneeyaa maxabada iyada ka fadli badan oo ka sareysa inaan nabiga weyneyno oo aad u tacdiimino oo nafteena iyo maalkeena iyo khidmadeena iyo jaaheena iyo sharafteena waxba inaan ula harin saasa xaqina waa dadka diidan nabigeena ixtibaalkiisa diidadoodu waxay noo kordhinaysaa dadaal iyo qiiro iyo sharaf iyo tacliimin nabiga inaan weyneyno oo sanadba sanadka ka dambeeya sidii hore wax ka weynaan maartay ka dhigno waan ku ixtifaalo dadka muslimiinta oo nabiga ixtibaalkiisa maanta u taagan quraanka aad dhageysato sida ilaahay isugu lamaaniyay haddana uu ka sheekeynay sheekha cibaadaadka inaysan ansaxayn haddii asaga nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu sallin jacaylkiisana waxaad garan kartaan saxaabi asxaabta kamid ah ayaa mar u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri nabiga ilaahay oo markaan ka maqanahayna xoogaa si wax iga noqdaan markaan imaadana aad baa jacaylkaygu u bataa marka nabiga wuxuu ugu jawaabay almaru man habba ma'a man habba qofku wuxuu maciisa ahaanaya qofku jecel yahay ya rasuulallahi judli bil muna wa bi shafaa'ati bi yawmil jaza'i شهر الربيع موسم الأحبة والله وهو عيدنا المشرع شهر الربيع موسم الأحبة والله وهو عيدنا المشرع waxaan aad uga mahadcelinayaa culimmadii joodiga weyn gelisay isu imaadkan iyo xafladan iyo banaanbaxakan ka soo shaqaysana ilaahay agtiisa mahad waa ka gaadho intii soo aqbashay oo ka soo qayb gashay oo weynaynta iyo qiimaynta u soo qayb gashana ilaahay waxaanu ka baryanaa inay ajarkeeda iyo xasanaadkeeda helaan walaqad wasayna
وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولقد حقيقة وصينا وحان ودرداني الذين كوي أوتوا لسيئة الكتاب كتابك ومن قبلكم إن كوريي وإياكم إذن كبا أمة محمد أن اتقوا الله إلهي إناد كبغضان magaalada amnigeeda inaad igala shaqaysaan una istaagtaan waxyaalaha yaryarka ah idinkan waxa idinku nahay garabkiina nahay inaad u istaagtaan amniga nagala shaqaysaan wax badan baa jiro oo u baahan la iska kaashado muslimka khaaliska ah ma ogolo dhiigga islaamka inuu beenbeen ku daato ma ogolo raallina kama ahan qofka muslimka ah war dadka wacyigeliya midda koobaad waa ducaysanaynaa ducada Allah noo aqbalo dhibaatada iyo culayska nasaarna Allah naga dulqaado qorrax kulul baan taaganahay ilaahay noogu bedelo roob Allah noogu bedelo maalinta barakadeeda iyo khayrkeeda roob iyo baraka Allah na siiyo dadka culayska iyo dhibka iyo isfahan la'aanta Allah ka dulqaado waxaan leeyahay bulshaweynta degmada Caabudwaaq ama bulshaweynta reer Sade sida rasuulkiina calayhi salaatu wasalaam aad u jeceshiin Allah idin jeclaado waxaan aad iyo aad u danaynayaa haddii jacaylka rasuulka uu dhab naga yahay inaynu isjeclaanno oo midba midka kale uu jeclaado uusan qabiil ku fiirin oo reer hebel uusan ku fiirin oo dad kale uusan ku fiirin ay isku jeclaadaan ilaahay dartiis waxaa jiro conflict badan baa jiro oo deegaanka ka dhex jiro conflictigaas dadkoodii baa tihiin ehelkoodii baa tihiin odayaashoodii baa tihiin culimmadoodii baa tihiin ee gacmaha intaas qabsataan ilaahay dartiis u soo bannaanbaxa oo arrintaa wax ka qabta waxyaabaha yararka oo jirana dhammaystira